wahagaag saaxiibayaal xildhibaan ka tirsan xildhibaanada Mareykanka ayaa wuxuu soo saaray sharci lagu doonayo in Somaliland loo aqoonsado wadan ka madax bannaan Soomaaliya. Haddaba muuqaalkan faahfaahintiisa oo aan soo koobay ayaan idinla wadaagayaa. Muuqaalkan qabo asxaabtaada la wadaag haddii aad igu cusub tahayna follow isoo dheh sidoo kalena like tahay ilaawin insha Allah. Congress Scott Perry oo ka mid ah xildhibaanada Mareykanka oo laga soo doorto Pennsylvania ayaa keenay sharci Somaliland loogu aqoonsanayo wadanka madax bannaan Soomaaliya inteedii ka. Sharcigan wuxuu soo baxay maanta oo Khamiis ah bisha ay ku beegan tahay bisha 6/12keeda 2025. Scott wuxuu ku doodayaa in Somaliland ay mudan tahay in la aqoonsado maadaama ay tahay meel xasiloon amni uu ka jiro ayna tahay in Mareykanka uu ka dhigto saaxiib ay ku leeyihiin Afrika oona muhiim u ah wadanka Mareykanka. Inka badan 30 sano waxay soo bandhigeen reer Somaliland dowladnimo xasilooni wada shaqeyn taasoo mudan in Mareykanka uu taageero ayuu yiri xildhibaanka. Maadaama cadow shisheeye uu ku baahayo Afrika iyo adduunka oo dhan annaga ayay dan inoo tahay inaan xoojino wada shaqeyn aan la yeelano saaxiibo la isku haleyn karo oo qiimaheena garanaya qaybna ka noqda amnigeena waqti kasta iyo meel walba ayaa lagu yiri warbixinta. Scott oo saaxiibadiisa Kongareeska ka iibinaya sharciga ayaa yiri Somaliland waxay ku taalaa wada muhiim u ah shixnadaha ama maraakiibta caalamka u kala goosha oo ah Gulf Aden oo u dhow Baabul Mandab ayuu yiri. Dowladda iyo nidaam siyaasadeedka ka jira Somaliland waxay hadda u shaqeeyaan si ka madax bannaan Muqdisho oo ah meel aan xasiloonayn oo colaadii ay burburisay ayaa lagu yiri warbixinta. Sheegashada Soomaaliya ee Somaliland waxay ka hortagaysaa xiriirka diblomaasiyadeed aan la yeelanayno Somaliland ayuu yiri xildhibaanka. Somaliland waa saaxiib la isku haleyn karo oo samaysay doorasho dimuqraadi ah si firfircoon ula dagaalanta ama si joogto ah ula dagaalanta burcadbadeeda ayaa sidoo kale warbixinta lagu xusay. Sharcigan waxa soo saaray xildhibaan Scott balse waxa co-sponsor ka ah xildhibaan Andy, xildhibaan Pat Harrigan iyo xildhibaan Tom Tavening. Congressman Andy Oglos oo ka mid ah dadka sponsorka ka ah sharcigan ayaa wuxuu yiri xiriir xoogan oo aan la yeelano Somaliland aad iyo aad ayay muhiim u tahay maadaama China ay ku baahayso Afrika. Waxaan taageerayaa ayuu yiri dadka reer Somaliland ee hiigsanaya in ay helaan madax bannaani waxaana rajaynaynaa inaan la samaysano wada shaqeyn isla markaana ay noqdaan saaxiibadeena. Congress Pat Harrigan oo isagana warbixintan hadal ku qoray waxa uu yiri waan taageersanahay sharcigan. Somaliland waxay xiriir adag la samaysatay Taiwan waxayna iska diiday in ay u sujuudo China ayuu yiri. Xildhibaan Tom Tavening oo isagana wax ka qoray warbixintan ayaa wuxuu yiri waqtigan oo aan tartan adag kula jirno China iyo Iran iyo kuwa kale Mareykanka iskama indhatiri karo saaxiibadeena. Sharciganna wuxuu muujinayaa jiritaankeena iyo joogitaankeena East Africa waana garab istaagayna saaxiibadeena oo ula jeedo Somaliland. haddaba muuqaalkan qabo asxaabtaadii la wadaag. haddaba haddii aad u baahan tahay halka aan ka keenay xogtan waxaad soo eegi kartaa website-ka xildhibaan Scott Perry oo sidan u qoran. waad ku mahadsan tahay daawashada Shaaciye One Show.